waxaa howlka shirarka ee dowladda hoose degmada Boosaaso si rasmi ah uga qabsoomay shirka saddexaad ee golaha deegaanka degmada Boosaaso waxaana kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka Bari wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha Puntland duqa degmada Boosaaso ahna gudoomiyaha golaha deegaanka iyo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Boosaaso ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay duqa degmada Boosaaso wuxuuna ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay saldhigga dhexe xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha gudoomiyaasha xaafadaha gudoomiyaasha kaamamka ururada bulshada saxaafadda dhammaan inta kasoo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii 12aad 2016 dabayaaqadii sanadka 2016 markii hore waxaan rabaa inaynu Allah subhanahu wa ta'ala ka codsanno in Ilaahay uu roob inoo keeno maadaama abaar aad u riiqatay ay dalkeena aad u saameysay gaar ahaan Puntland Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob ummadiisa ugu deeqo Ilaahayna inoo yasiro kulligeena faatixada u soo marno sanad walba hadaha ayaa waxaanu qabanaa shirka kalfadhiga golaha deegaanka oo ah kii saddexaad ee waqtigeenu joognay waxaan ku faraxsanahay inaynu ku soo gaarnay jawi fiican horumar leh waxqabad leh Boosaasona himilooyinkii ay hiigsanaysay oo qorshuhu ahaa markii aanu la wareegaynay shaqada inay meel fiican marayaan waxa dhiman insha Allah taala 3 sano iyo 9 bilood baan malaynayaa waa inoo harsan inaan wax weyn ka gaari karno baan rajaynayaa insha Allah taala Boosaaso oo sawirkeedu ka duwan yahay sawiradii hore ayaan rajaynayaa inaan helno sanadakan maxay tahay waxa aad u daahay Puntland oo dhan mashaariicdii horumarinta ee JPLG-ga cilada farsamo awgood waxaan rajaynayaa dhawaan insha Allah taala in dhammaan bilaabmi doonaan wadooyinkii iyo mashaariicda horumarinta dalka ka socda waxaa kamid ah mashaariicda haatan inagu sugayno kuween halka ka soo sheegnay oo fiidiyowga badankood lagu soo bandhigay sida labada wado wadada maxay tahay goynaysa dawladda hoose iyo wadada iskoolka najax ka soo baxaysa oo runtii wax weyn ku soo kordhinaya horumarka iyo isu socodka magaalada waxaa sidoo kale aanu hadda bilownay oo wadna qorshe dhirayna oo magaalada Boosaaso lagu sameeyo taas oo aanu ku soo darin barnaamijkii aan hadda soo bandhigeynay waxaan qorsheynaynaa 9,000 oo geed insha Allah taala labada sano soo socota inaan beerno waxaan la kaashanaynaa hay'adaha caalamiga waxaan hadda ogolaasho ka helnay mid kamid ah hay'adaha caalamiga insha Allah taala dhawaan baan bilaabi doonaa waxaad aragteen hadda laga wadaa jidka sodonka la dhameystirayo iyo jidka airportka oo aan iska kaashanay annaga iyo hay'adda BSF waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa agaasimaha hay'adda BSF Asad Cusmaan oo runtii muwaadin ah wax weyn ka qayb qaatay qaybta dhiraynta iyo bilicda magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso qorshayaasha degan oo hadda kowka ah inaan qabanno waxa kamid ah qorshaha qaab magaaleedka lagu sameeyo ama urban plan city urban plan oo hadda maxay tahay socda dhowr iyo 20 bishan insha Allah taala aanu bilaabayno iyadoo practical daahfurkeedii aan halka ku sameeynay aad joogteen wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dekedaha iyo wasiirro badanna ay halkan nala joogeen markii ugu horeysay oo magaalo Soomaaliya ku taalna laga fuliyo town balay noocaas ah oo saaw casraysan ay noqoto insha Allah taala waxa sidoo kale qorshaha noogu jirta inaanu dhisno xarun cusub oo dawladda hoose leedahay taasoo maxay tahay qorshaheedii wadno naqshadeedii iyo qaabkeedii aanu diyaarinay insha Allah taala aan rabno inay dhaxal u noqoto taariikhdeennana maxay tahay ku qormato golaha deegaanka iyo waqtigiisa in markii ugu horeysay dhisme cusub oo dawladda hoose Boosaaso leedahay waxaa qorshaha noogu jira insha Allah taala inaan dhisno iskool ay yeelato caruurta
darbijiifka iyo agoomaha ah oo runtii magaalada aada ugu dayacan haddana guri aada u yar oo runtii aan maxay tahay ku filnayn lagu xanaaneeyo iskana kaashadaan culimada iyo dowladda hoose kana ururinay magaalada dhexdeeda kowdii habeenimo iyo labadii habeenimo waqtiyo la joogo si ay u helaan daryeel ka fiican waxaan jeclaan lahaa inaad daawataan fiideo aan ka soo duubnay mid ka mid ah sida uu aqriyo qur-aanka kariimka maadaama aan horey jaanis u helin marka uu jaanis helay uu marayo 24 jis waxaa dhacday aabihiis oo muddo la'aa ayaa yimid markii uu la kulmay wiilkiisa waa filan waayay inuu wiilkiisii uu halkaa marayo waan u mahad celinayaa maxamed jaamac oo runtii qayb weyn ka ah asaasaha barnaamijkaasna ah Islamic Orphan School waxaan rajaynaynaa dhulkii waa haynaa culimada iyo ganacsatada iyo dowladda hoose iyo dhammaan iyadoo inagoo isku tashanay in dhismahaas inuu wada istaagno maxay tahay waxaa sidoo kaleeto safar ku tagnay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis oo Boosaaso ay la noqotay mataan kana mid noqotay 13 magaalo ee la mataanaha magaalada Minneapolis waxaan maxay tahay halkaas la soo galnay barnaamijyo badan oo aayaha dambe iyo Boosaaso mustaqbalkeeda wax weyn u ah waxaa hadda magaalada Dubai dekeda Jabal Ali yaal qalabkii maxay tahay laababkii lagu baarayay faraha iyo indhaha iyo dambiyada guud ee la galo iyo sidoo kale qalabkii dabdamiska insha Allah taala labada asbuuc soo socdana wax soo gaari doonaan magaalada Boosaaso waxaa ka wada qayb qaatay ganacsatada iyo dowladda hoose oo isku tashi ayaa lagu soo raray waan u mahad celinayaa cid Allah cid ka qaadatay halkan ayaanu shahaado ku guddoonsiin doonaa Allah wadal haduu ogolaado sidoo kale waxaa noo socda dadaal inaanu qalabayn cusbitaalka Boosaaso u sameeyno sidoo kale waxaa noo socda in qaybta waxbarashada maxay tahay public schoolka iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ay iman doonaan sanadka cusub Boosaaso insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xiriir laga faa'iideysto waxtarna yeesha jaamacadda bariga Afrika iyo jaamacad ku taal halkaasna aan mataanayn doono oo wada hadalkii u dhamaaday صحيح heshiiska kaliya uu harsan yahay Boosaaso waxay ka faa'iiday wax badan waxaan haatan maxay tahay qorshuhu insha Allah taala magaalooyin badan oo caalamka ku yaala inaan Boosaaso la mataanayno ayna noqoto mid ka mid ah magaalooyinka mataanaynta mataanaha la ah magaalooyin badan oo caalamka ku yaala wax weyn bayna u taraysaa magaalada Boosaaso ma aha magaalo emergency ku jirta waa magaalo horumarna ka socdo wax badanna u baahan in laga bedelo insha Allah taala isku tashigeena iyo taladeena mid ah waxbaan kaga bedeli kareena insha Allah waxa halkan rabaa inaan maxay tahay laba qodob ka yiraahdo amniga magaalada ayaantan waxa weeye waxa soo baxay dhalinyaro da'yara oo maxay tahay ka yar 20ka oo waxay bilaabeen inay dadka mobilada ka furtaan inay xaafad isugu duulaan inay iyaga ruuxadooda ay qayb nafta ka saaraan hadda maanta waxaa noo xiran 120 xal la soo qabtay waanu kala shaandhayn doonaa cid allaale cid dambi lagu helo waxaan u qaadi doonaa oo ku soo xiri doonaa qardho garow iyo galgacay si ay waalidkooda uga fogaadaan sidoo kale waxaa la rabaa dhammaan xaafadaha qof walba oo maxay tahay inuu maxay tahay u dadaalo oo uu ogaado in maxay tahay lagu nool yahay nabadgelyada waxaa nasiib darro ah in qof halkan nabadgelyo xumo samaynaya ama qof dilaya ama dhib geysanaya in dad badan u jeedaan ma dulinimo haysata ma waxba ka khaldan ma baqdin baas bayna haysata aan la sheegayn waxaan maxay tahay ugu baaqayaa bulshada Boosaaso waad aragteen oo haatan qandala iyo maxaa la yiraahdaa garacadba waxa had iyo jeer garab taagnaa ciidamada oo runtii maxay tahay isu diyaariyay inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan shacabka ku dhaqan deegaanadaas maxaa sababay in shacabka Boosaaso jooga indha ka awtaan qofka dibka sameynaya kan mobilka furanaya kan wax dilaya kan bahalkayga qof walba waa inaad ka shaqeyso nabadgelyada taas aad baan ugu dhaliilanahay
waxaan rajaynayaa inay wax iska beddelaan waxaan rabaa sidoo kale consulka magaalada waxaan u astayn doonaa insha allahu tacaala in ay maxay tahay 16 xaafadood aan u qaybino xaafad walba qof city council uu mas'uul ka noqdo loona dooro doono consulkuna uu astayn doonaan inuu qofkaas uu matali doono xaafadaas warbixinteeda iyo nidaamkeeda iyo kulli isagu mas'uul ka noqdo kalana shaqeeya laamaha amniga sidii loo sugi lahaa nabadgelyadeeda waxaan maxay tahay rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta ka soo wada qayb gashay khudbadda iyo iyadoo maxay tahay qoraal insha Allah tacaala waa soo gudbin doonaa page-ka dawladda hoose ayaan soo dhigi doonaa cid walba halkaas ayay ka daalacan doontaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacaysleedo ayaa xildhibaanada golaha deegaanka ka codsaday inay ammaanka Boosaaso kala shaqeeyaan si looga hortago kooxaha falalka amni darrada ka geysta gudaha magaalada waxay laakiin hadda iska saacadaan oo tira amniga degmada ma fiicna amniga degmada adinka mas'uulka ah adinka la ilay doortay adinka waxa weey dadka jooga in soo xusheen caawa laga bilaabo waxa weey qaybta keenaysan 5 qof habeenka sawa 5 qof waa inay jiraan وأمني نجارة شقية ووقتين سراكيل بالغولاي ووقتين مقالدو ومحايدي حالتين ما فينا قبل كنا حالتي سمدقنا عبد الله عبد النور يوسف عيسى عبد الله بكيلة تيفيك عالمي ستار بوصاصو